ku bilowna marka hore cabdirashiid xidig iyo madaxweyne farmaajo ayaa xalay kulan qarsoodi ah yeeshay kaas oo looga wada hadlayay murashaxnimada xidig ee guddoonka baarlamaanka kaas oo xidig uu ku dhawaaqay inuu u taagan yahay warar hoose uu waddanka TV helay ayaa sheegaya in xidig uu qaatay lacag dhan $2 milyan dabadeedna isaga haro kursigaasi loogu talagalay markiisii hore in farmaajo lagu carqaladeeyo in mar labaad uu soo laabto xidig hadda waxa uu ku biiray isbahaysiga farmaajo wax ka dhisaya in mar labaad la doorto wixii ku soo kordha waddanka ayaad ku daawa doontaan waa tahay guud ahaan waxaa la odhan karaa haddii aanu soomaalinahay waxaan siyaasadda oo idil u fahamsannahay qaab gedgedis ah oo aad u jaha wareersan laakiin waa noo siyaasad miya haye dad baa yidhaahda soomaalidu waa wada siyaasiyiin ha ka yaabin taasina waa fikrad kale oo qaldan wada siyaasiyiin ma nihine waxaan jecelnahay inaan ka hadalno wax la yidhaahdo siyaasad oo aan magacaasi uun ka hayno marka aad dhegaysato doodaha lagu tilmaamaya in siyaasad looga doodayana waxa ay 90% salka ku hayaan qabyaalad keenaysa qof la iska jeclaaday iyo qof la iska nacay dan sidaasi oo kale ah iyo qofkii xitaa mowqif iyo mabda'a wax ku taageeraya oo qaanadahaasi si iska diyaarsan loogu kala rido tusaale ahaan ereyga muxaafid amaba conservative markii siyaasad ahaan loo dhigo waxa uu kow ka yahay tibxaha aanu qaladka ka fahamnay waayo muxaafid waxaa siyaasad ahaan la yidhaahdaa qofka asal raaca ah ee ay dhanka wadaniyadda u janjeera islamarkaana ku dheggan in aan laga tegin habnololeydkii hore islamarkaana aan la dhacsanayn nuuca liberaalka walow beryihii dambe uu tadawar ku dhacayay oo ay soo baxayeen muxaafad liberaal ah iyo wixii la mid ah ha yeeshee marna muxaafad ma aha sida aanu u fahamsannahay ee ah inuu yahay ciddii markaasi xilka haysa waase dhici kartaa mar uu xisbi muxaafadihii xilka hayo sida haatanba ka jirta talyaaniga UK iyo Maraykanka haddii aanu xitaa u dhigno sida ay Soomaalidu u taqaano muxaafadnimo ma aha in aad iska taageerto wax kasta oo ay dawladdu samayso amaba ay soo jeediso waa inaad leedahay halbeeg aad ugu raaci karto amaba wax ugu diidi karto waxaan la yaabay jawaab ka timid mid ka faaleynayay wiil si qalad ah lagu xiray war laga sameeyey mid baa madashii wadahadalka ka yidhi hebel ka xiray iyo wiilka la xiray waa isku qabiil ee maxaa idinka galay waa arrin kale oo aan maalin gaar ah uga hadli doono oo muujinaysa fahamka ku dhisan in qof iyo dawlad la isku qaldo balse misna waxa ay keentaa taageerid iyo mucaaradad idman haddii uu qofka dawlad qof u yaqaano ee uusan hay-adba u aqoonin dabcan way jiri karaan marar aad taageeri karta iyagoo kula qaldan waase haddii ay jirtaa sabab uu qaladkoodu u dhaamo amaba uu uga roon yahay ikhtiyaarka kale ee la heli karo mucaaradada Soomaalidu waxa ay qaar badani u fahmeen in lagu saleeyo nacaybka iyo jacaylka aad u qabto qofka aad go'aankiisa mucaaradayso balse in badan wax falanqayn ah laguma sameeyo go'aanka naftiisa iyo nuuciisa waxa inta dheer mucaaradka Soomaalidu intaasi waxbay ku baaqayaan in la saxo ha yeeshee kama fikiraan inta uu isagu saxan yahay qofka wax saxaya isla markaana arki maysid iyagoo keenaya hindisyaal wax dhisi kara balse waxbay diidan yihiin waana inta uun waxa dheer mucaaradadoodu ma laha falcurin ee waa uun falcelin ay soo tuuraan jawaabo u muuqda kuwa isu agmisna taban maqaalifada amaba maqaalifu waa nuuca ay u badan tahay mucaaradada siyaasadda Soomaalidu waxa ay ku salaysan tahay in la khilaafo wax kasta oo ay dawladda markaasi xilka haysa ku baaqdo isla markaana lala safto cid kasta oo is hayaan waxa ay doonaan ha ahaadaane xitaa dalal ka mid ah kuwa qolada wax khilaafaysa ku baaqdo inay yihiin cadow Soomaaliyeed marka ay dawladda is hayaan waxay isu bedelayaan saaxiib Soomaaliyeed marka ay dawladda iskhilaafsan yihiin tusaale nool waxa ah barigii dawladda iminka jirta ay diiday in ay la safato Sacuudiga iyo Imaaraadka dhanka khilaafkii qaliijka rag badan oo dawladda go'aankaasi ku dhaliilay iyagoo sheegaya inuu dalkaasi yahay lama huraan ay qasab tahay in si ruuxi ah loola safto ayaa misna ka soo horjeestay go'aan ay dawladdu ku taageertay beri dambe oo ay isqabteen Sacuudiga iyo Kanada marka aad caadiyan fiirsato go'aamada beryahan iska soo dabadhacaya ee lagu sheegaya in looga soo horjeedo ergegii Madiira ee u muuqda kuwa muujinaya sida aynan u fahamsanayn hannaanka siyaasiga ah maadaama aan xildhibaan iyo weliba gobol gaarihi go'aanba ku lahayn arrintaasi oo sax iyo qaladba ah arrin u dhowran dawladda dhexe misna waxa aad ka fahmaysaa inay go'aamada diidmada ihi ku dhisan yihiin muqaalifo oo qur ah balse aanu jirin mabda' iyo nuxur ka dambeeya oo warkaasi lagu caddeeyey marka laga reebo
way ku qaldan tahay iyo innagu waa taageersannahay gabagabadii walow ay xaq tahay in dowladda la mucaarado oo lagu dhaliilo wixii qalad ah ee ay ku tillaabsato misna sax ma aha qaabka aanu u wajahayno mucaaradada aragtiyaha aanu ku dhisayno iyo gebiyahanba sida ay dad badani u fahmeen siyaasadda waana arrin haddii aysan saxmiin aan muddo dheer iska daba wareegi doonno waa tahay toddobaadkii 12 abril ee maalinta aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhacdo xusuus igu leh waa 13 luulyo 2020 waxaan safar shaqa uga soo baxnay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya waxaan safar u ahayn kuliyadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Turkistan waxaana maraynay tarabuunka iyo meel u dhaxaysa isbitaalka xoogga dalka safarka waxa ay ujeedadiisu tahay in uu soo saxiixo buugga qalinjabinta sargaal xigeenka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhammaysta waxbarasho hal sano ah taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guuto Odawaa Yuusuf Raage waxaan nahay 3 gaari 2 ilaalada taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gaariga taliyaha ciidanka oo ah nuuca aanu xabadu karin gaarigaasi waxaan ku saarnayn 4 qof aniga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guuto Odawaa Yuusuf Raage iyo darawalkii gaariga marka aan marayno meel kaalin shidaal dhinaceeda ah ayaa gaarigii hore ee ilaalada taliyuhu waxa uu ku socday xawaare uusan horay ugu socon isla markaa waxa isna xawaare sare ku socday gaarigii aynu saarnayn ee taliyaha aniga iyo weliba taliyaha ciidanku waxa aanu fadhinay kuraasta gadaale ee gaariga waan iska sheekaysanaynay wax dareen ah amaba digtooni ahna naguma jirin gaariga xawaarihiisa saa'idka ah ayaan muraayadda hore ka eegay waxaa jiray wax indhahaygu qabteen gaari saaruf ah oo madow oo gaarigeennu uu la sii sinmayo isagana xiga dhinaca taliyaha markii uu gaarigeenna isla simay si dhammaystiran ayuu u qarxay intaasi kadib waxaa si dhammaystiran aan u waayey aragtidii iyo dadkii gawaaridii iyo weliba jawigii degganaa ee aanu ku socnay waxa uuna jawigii noqday mid uuro dab qiiq iyo weliba faniinkii birta gaariga qarxay oo la maqlayo shanqarteeda sidoo kalena gaarigii aanu saarnayn waxa uu noqday mid burbura oo ay gudihiisa yaacayaan maryo cadcad ayaa meel kasta ka soo boodayey gaarigiina waxa uu noqday meel bannaan ah waxaa furay daaqaddii bidixda oo aan saarnaa waa ay ii furantay si fiican waana soo xidhay isla markiiba waxa airbagii intuu iska fujiyey nala hadlay darawalkii gaariga waxa uuna nagu yidhi isagoo wejiga dhiig ka daadanaya ma nabad qabtaan taliya Odawaa ayaa ku yidhi haa waa nabad qabnaa ee ka dhex bax qaraxa xasan ma nool yahay xasan waa ay dhikaabka taliyaha oo kooma galay intaasi kadib darawalkii waxa uu noo istaajiyey gaari nuuca konteenarada lagu qaada ah oo aan waxba saarnayn markaasi ayaana ka deganay daaqaddii aan xigay oo keligeed furmaysay kana fayoobay daaqadaha gaariga markaan ayay xaaladdu cakirantay markii uu qarax dhaco waxaa timaada in qof walba uu difaac galo dadka ka agdhow goobta kadibna ay si dhuumaalaysi ah u ogaadaan xaaladda sidoo kalena dadka lala eegtay qaraxa ayaa iyaguna waxa ay bilaabaan in ay fahmaan waxa dhacay qaabka ay yihiin nuucooda waxaana dhacda in ay marka hore ku wareeraan sida ay wax u dhaceen isla annagu waxaanba aragnay amaba shaki nagu bilowday qaraxa ka hor marka xaaladdu waa ay noo caddeed waxaase imaan karta qaraxyo kale oo gawaari tuuryo iyo weliba dad ah kuwaas ayaana markiiba niyadda gashanay in ay imaan karaan waxaase dhacdo la yaab leh noqotay markii ay dadweynihii ogaadeen in qaraxa lala beegsaday taliyihii ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa isbedelay hal mar jawigii waxa ayna shacabkii oo dhammi ku tala galeen in ay ogaadaan in taliyaha ay wax gaareen iyo khasaare kale askarta taliyaha ilaaladiisana waxa ay ka walwalayeen in qof isqarxiis ah uu imaan karo waxaana aad ugu farxay hooyo joogtay goobta ayaa askartii si miir la'aan ah ku soo dhaaftay iyadoo leh hooyo taliyaha wax ma gaareen hooyo taliyaha wax ma gaareen askari ayaa ku yidhi maamu waxba ma gaarine noqo taliya Odawaa ayaa ku yidhi hooyo waxba ima gaarine ka laaba meesha waxaa dhici kara qarax kale cajiib hooyadii ayaa ku jawaabtay hooyo haddii aad adigu nabad qabto kulligeen waan nabad qabnaaye ma hubtaa inaan wax ku gaarin haah ayuu yidhi hooyo waxba ima gaarin maasha allah ayay tidhi hooyadii waana ay dhaqaaqday waxa ayna warbixinteenna gaarsiisay dad badan oo meesha dhoomna markaas ayay dadweynihii fursadna siiyeen aan ku aruursanno dhaawacyada iyo weliba meydadkeenna waxaa qaraxu saameeyey gaarigii gadaale ee ilaalada taliyaha kaas oo ay soo gaartay burbur dhimasho iyo dhaawac waxaa gaariga burburay hore u saaran nin sargaal ah oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee kuliyadaha loo diray kaas oo markaasi ka yimid kuliyad welina aan ka howlgelin muqdisho iyo gobollada dalka waxa uu wajay gaari aan xabaddu karin
markii aan ka soo baxaynay wasaaradda gaashaaniga ayaa lagu yidhi taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kuu taagan waxa aadna ka mid tahay saraakiisha u socota kuliyadda Turkisham gaarigiisa ma uusan sugine waxa uu shirka hore u fariistay gaariga ilaalada taliyaha markii ay dadkii boqsanaa naga kala fududaadeen ayuu noo yimid markaas ayaana ku idhi meeshaan ma sii joogi karee gaarigaada noo keena ansaare taliyihii intuu laabtay ayuu u tegey gaarigii oo burburay markaas ayuuna nagu soo laabtay waxa uuna nagu yidhi gaarigaygii waa burburay ugu dambeenna ehelada shaqaalihii la socday markabka calanka badda madow ee ruushka Moskofa ayaa ka hor yimid faafreebyada dowladda ruushka si ay u qabtaan xus baroordiiq ah oo aan rasmi ahayn maanta iyadoo Ukraine ay sheegtay in dhammaan 510 ahaa shaqaalihii markabka ay dhinteen kuwaasoo ku jiro naaqoorihii markabku sheegashada Kyiv ayaa imaanaysa kadib markii Maraykanku uu xaqiijiyey inuu aaminsan yahay in Ukraine ay dhab ahaantii gantaal ku garaacday markabkan oo ahaa kuwa qaada gantaalaha Kruushka oo la sanceeyey waayihii Sofiyeetka kaasoo ay wasaaradda gaashaanigu Ruushka xalay xaqiijisay inuu degay kadib markii dabkiisa la damin waayey Anton oo ah la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Kyiv ayaa maanta sheegay in qaraxa uu ahaa mid aad u xoogan oo keenay in calansadihii Ruushka ee badda madow uu ku dego daqiiqada gudahood waxa uu ku andacooday inuu arrintani ka maqlay ila ku sugan Estofisol oo ah xarunta ugu weyn ee maraakiibta badda madow ee Ruushka sida muuqata natiijada dabka awgeed madaxyada gantaalaha waaweyn ee B1000 Falcon ayaana qarxay waxa uuna markab ku siday 16 gantaal oo nuucan ahaa natiijo ahaan dhammaan shaqaalihii markabka Moskofa waa ay dhinteen waxaa dadka dhintay ku jiray kabtankii markabka Anton Kobrin ayuu yidhi Grasnoko dhanka kale waxaa jirta arrin kale oo cabsi leh Maklifo Samos oo ah agaasime ka tirsan hay-adda daraasayda arrimaha milatariga oo fadhigeedu yahay Lviv Andriy Kalmako tifatiraha Black Sea News iyo wargeyska Defense Express ee Ukraine ayaa dhammaantood ka digay in Moskofa uu sido